aamin ambulance oo aad garanaysaan shaqada iyo waqtiga ay qabato iyo shaqooyinka ay hayso waad ku mahadsantihiin sidaad nagala soo qayb gasheen sababaha saakaan ku yeernay aamin ambulance waxa weeye runtii waa qayladhaan cabsi laga qabo adeegan inuu istaago laakiin ma istaagi doono inta aan noolnahay yacni dhibicda ugu dambeyso dhiigga u shubaynaa laakiin cabsida ugu weyn waxay tahay adeegan sidoo kusii socon karaa adeegan wuxuu u baahan yahay yacni maskax iyo muruq iyo maal ayuu u baahan yahay markaanu bilaabaynay innaga isku tashanaynay jeebkeenaan ku tashanaynay waxaan soo joognay waqti aan 100% anaga jeebkayga ka bixin jiray 70% aan bixin jiray 50% aan bixin jiray hadda waxa weeye adeegii gawaaridiina way bateen dadka adeegsanaya ama isticmaalayna aad u bateen oo mujtamacu waxay u hayaan macnaha qof waliba wuxuu ku xisaabtama ambulance markay wax gaaraan hawl waxa la dhihi jiray ambulance hadii la maqlo qarax ma dhacay mase qof aa dhaawacmay laakiin hadda waxa weeye hooyada foosho hayso ilmaha shumaya iyo qof kasta oo dhibaato caafimaad degdeg qaba in la qaado isbitaal la geeyo marka maadaama uu batay adeegii dadkii adeegsanaya ay bateen gawaaridiina ay bateen maanta yacni 16 ambulance oo functional aan hayno waxay u baahatay kharash fara badan ayaa baxaya kharashka faraha badan ayaa baxaya waxa looga baahan yahay ummadda Soomaaliyeed inay bixiso qof kasta oo naga mid ah يعني أنا ما دوني إنه خرج بدن ملايين دولار ما وحربنا لكن وحلا وحن سيدي كوسع كران وحاوي باور تضيعتر أبايهين شدال أبايهين مشاهدة اللي أباهي هاي باور عصب إن لقدا أبايهين كي دقوا إن ماش لقى صار أبايهين مركا وحاوي هدي قف كستو إنه من $1 أبحيه وحندين بلن قاضي إن قبل دقمي التول إن لجارسي كراديجن يعني مرحبا يعني ضدك وحلا قد دوني مركلي العجل اللي أباهين قفكو وحصا دجنا يا هالك إن العجب بدن لجربه $2 معه $1 oo bixisay ayaad qofku badbaadin kartaa $1 oo bixisay ayaad baawur ambulance ku geedi kartaa $1 oo bixisay ayaad qof mataqaan ku dhiig joojin kartaa yani hadda yani waxaan rabnaa marka dhammaan mujtamaca qaybihiisa kala duwan ganacsatada ardayda macallimiinta meediyaha yani cid kasta oo inaga mida inay ka qayb qaadato adeegan waxaan si gaara rabnaa inaan ula hadalno dawladda kama rabno oo kaliya inayna ammaanto laakiin waxaan ka rabnaa خرج كان صعدة إن اللو ريكتو أو يدو أي بحس جيبه كبعس واحد أكتين آمن أمبولانس الله بيجي طبعا كستنا يشقيني سي وحي أذيك عافمات سي إن كبان صدم كون أوقف أي أجر جارتي لديك توجي ضد كاسو أي صورة قال أهالي هدين آمن أمبولانس تشير لهن إن الدنتان واحد سنتين قفك جارجع على الوقا يشري جارجع على مركز الوقا 5 كيلومتر للربع إسبتال أجر إلا جيو أو ديك بحيو way keed inuu qofku noolaado laakiin maanta waxa la haystaa aamin ambulance oo qof walba 3 sagaal soo wacayo ee uu leeyahay ma taqaana ambulance raba dhibkaan haysta marka ilaa 30,000 oo qof in ka badan hadii la gargaaray haday sii jirto meeqa kun oo qof ay badbaadin kartaa waa in badan waa marka waxaad ogtihiin oo taa ka sii daran adeegan aamin ambulance ee maanta intaas oo gawaari haysta intaas oo shaqaalaha haysta intaas oo agab haysta malahan space ama meel baawurta lagu xanaaneeyo malahan meel shaqada lagu tababaro malahan meel shift laga galo malahan meel baawurtaas lagu yani lagu baakin gareeyo waxaadna ogtiin dawladda dhulka ugu badan ee gobolka banaadir iyadoo leedahay banaan ee maanta guri kiraa aan ku jirno xafiiskan guri kiraa ku yaal waxaana dawladdu in arrimahaas oo dhan u soo istaagto oo naga caawinto way ku maasan tahay dawladdu inta ay nala qabatay iyo inta ay hore u soo qabatay iyo waxa hadda ka bacdi qaban doontaba waxyaalaha hadda taagan waxa kamid ah baawur ambulance oo la soo gaday oo cusub oo tikada yaala in canshuur dhaafkiisa 60 maalmood oo nagu qaato 60 maalmood wiil xafiis soo iska dhigta meel xafiiskiisa iska dhigta warqadii oo leeyahay maalin kasta xafiiska ra'iisul wasaaraha jirta markii canshuur dhaafka la soo dhaafayna la soo dalacay lacag ka badan lacagtii canshuur dhaafka taana waxaan codsanaynaa qofkii nagala qayb qaadan karo oo yani lacagta naga bixi kara tikada backing chargeska waan u mahad celinaynaa isagana waxaan u mahad celinayaa dhammaan intii ka soo qayb qaadatay jiritaanka aamin ambulance aasaastaankeedii intii ka soo qayb qaadatay waxaan sidoo kale u duceynayaa intii ay gargaartay oo hadda maanta ama isbitaal jiifta ama yani ka kacday waxaan u mahad celinayaa qof kasta oo yani qayb ka qaatay aamin ambulance wax qabadkeedii hadda waxaan ka fakaraynaa dadka yani in guryaha lagu geeyo dhakhtarka in dhakhtarkii la soo qaado guriga lagu geeyo guriga lagu soo daaweeyo waayo way adagtahay ma yani qofkii inta la soo qaado isbitaal la keeno waxaan rabnaa service inta ka badan inaan siino dadka oo u dheeri ah cunuga xanuunsada laba xanuusto intii la soo qaadi lahaa isbitaalka keen lahaa inaan dhakhtarkii qaadno isbitaalka guriga ugu geeyno gurigiisa lagu soo daaweeyo
waxaan marka dhammaan Soomaalida meel kasta oo joogto degmo gobol iyo tuulo dal iyo dibid waxaan ka codsanaynaa adeegan inay ka qayb qaataan